bishii May 1990 haweeney lagu magacaabo Marlene Warren iyada iyo wiilkeeda oo lagu magacaabo Joe iyo saaxiibkiis waxay joogeen guriga subaxii hore waxay siiday quraac intii ay quraacanayeen ayaa waxa la soo garaacay albaabka waxaa furtay Marlene albaabka markii ay furtay waxay aragtay inuu taagan yahay clown gacanta ku wato salad ay ku jiraan ubaxyo waxay istiri markii hore waa qof loo soo dhiibay hadiyad kadib clownku wuxuu u dhiibay Marlene saladii iyo labadii buufinood markii ay ka qaadatay kadib wuxuu la soo baxay bistoolad kadibna madaxa ayuu hal xabad kaga dhuftay waana uu iska tagay wiilkeedii iyo saaxiibkiis markii ay maqleen dhawaqa xabadda waa ay soo kala ordeen waxay yimideen albaabka Joe wuxuu arkay hooyadiis oo dhulka taala oo dhiig ka socda iyo clownkii oo sii socda wuxuu isku dayay inuu ka daba tago laakiin uma suurto gelin waxay waceen sidoo kale booliska markii ay yimideen oo ay baareen qofka uu ahaa clownkii dilay Marlene ma aysan aqoonsan waxayna ku qaadatay 27 sano inay aqoonsadaan qofka uu ahaa clownkii dilaaga ahaa ee dilay Marlene Warren